maayirka caasimadda waddanka Liibiya ayaa waxaa laga afduubtay gurigiisa oo ku yaala caasimadda Tripoli waddankaasi Liibiya habeenkii Arbacadii iyo Khamiistii ay kala wareegayeen waxaana afduubkaasi u geystay kooxo hubeysan sida lagu sheegay war qoraal oo ka soo baxay guddiga magaalada Tripoli ee caasimadda. Guddiga magaalada ayaa waxay ugu yeereen xukuumadda iyo qaramada midoobay inay aqoonsadaan xaaladda ka jirta Liibiya beesha caalamka ee ku sugan Tripoli oo ay si dhaqso leh ugu baaqeen in tallaabooyin laga qaado arrimahaasi sidii loo soo sii dayn lahaa maayirka caasimadda. Guddiga magaalada ayaa waxa ay ugu baaqeen dhammaan kooxaha in ay joojiyaan howlaha shaqo si loo soo sii daayo taageerana loogu muujiyo maayirkii caasimadda ee afduubka loo geystay tan iyo markii meesha ay ka baxday dowladdii madaxweynihii horeeyay Liibiya Muammar al-Qaddafi sanadkii 2011 ayaa waxa waddankaasi Liibiya ka dhalatay xaalad ammaan darro iyada oo weliba ay kooxo maleeshiyaad iyo kooxo siyaasadda isaga soo horjeeda waddankaasi ay ka qarxeen. Xaaladda waddankaasi Liibiya ayaa iyadu ah mid ammaankaygu uusan aad u sugnayn oo aan la isku halayn karin.